kani waa Facebook cover banner waxaan ku nashqadaynay mobilkeena haddaba sidee baan ugu nashqadaynay haddii aad xiiseynayso ila soco ilaa dhamaadka muuqaalka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبات قيمها بدن له كسر دوادة تيلسوم إن شاء الله تعالى ما أنت وحنا نشقدين دونا أما أنسمين دونا نشقدن هلكن كاجا موقتة أو فيسبوك كفر بانر سيدو كله هو حلو استعمالي كرا بوستر وحلو يبيو أما لو بريموت كرايو سيدا وجدوا حن استعمال دونا أبليكيشن كله يقعنا بيكسل لاب وأن مقالب بدن أو تحنا كسر سمي أبليكيشن كان هذا ضب بهانت هاي أما أروح فكرة ده كهيسن أما ضب بهانت هاي نصيف عنو براتو كومنتي جو هرايا صوري دونا لينك جا مقالة دي هراء أو تحنا أو سي بيسيك إن شاء الله تعالى نشرح هايو لينك جاسنا واحد كذي دونتا كومنتي ugu horeeya hadii naga daawanayso barta YouTube iyo barta Facebook waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan si fiican isku fahanay sida awgeed shaqadeen ayaynu insha Allah ta'ala bilaaban doonaa application-ka ayaynu insha Allah ta'ala marka ugu horeysa soo furi doonaa markaynu application-ka saas oo kale u taabano interface-kiisa ama shaashada ugu horeysa sidan oo kale ayaynu ugu soo bixi doontaa sidii caadada inoo ahayd tagaskan ayaynu iska delete gareyn doonaa ama qoraalkan barta delete-ka ayaynu taaban doonaa kadibna okay baynu siin doonaa kadibna shaashadan ayay noo soo baxday shaashadan insha Allah ta'ala size-keeda ayaynu wax ka bedeli doonaa oo aynu yareyn doonaa sida awgeed marka ugu horeysa waxaan taaban doonaa saddexda dhibcood ayaan ku dhufan doonaa saddexda dhibcood markaynu ku dhufano kadibna halkan ay ku qoran tahay image size ayaynu insha Allah ta'ala ku sii dhufan doonaa kadibna halkan waxaanu ka dhigi doonaa 608 halkan waxaanu ka dhigi doonaa 1080 insha Allah ta'ala ka dhigi doonaa sida awgeed halkan waxaan ku qori doonaa 608 halkana 1080 inta kadib shaashadan yar ayay noo soo baxday oo shaashadii hore ka yar sida awgeed shaqadeenu sii wadan doonaa marka ugu horeysa waxaanu ku dhufan doonaa halkan calaamada wadarta si aynu shay ugu soo darno kadibna halkan ay ku qoran tahay shay bis baynu ku sii dhufan doonaa inta kadibna halkaas baynu soo furi doonaa halkaas markaynu taabano kadibna waxay noo soo bixi doona shaybabkan faraha badan leh sida awgeed waxaan dooran doonaa inagu midkan circle-ka ah kadibna hoos baynu xoogaa u riixi doonaa kadibna halka color-ka aynu ka dooran doonaa sida awgeed color-kaas aan doortay anigu kadibna calaamada check mark-ga saari doonaa inta kadib shape-kan in wax ka bedeli doonaa shape-ka waxa laga maamulaa halkan oo laga rotate gareeyo ama dhankii la doono loo jeediyo halkan oo ah batanada laga jiijiido halkan waxa weeye batanka laga weyneeyo sida awgeed batankaas aynu qaban doonaa saas aynu u jiidi doonaa waxaanu ka dhigi doonaa qaabka ukunta oo kale kadibna halkan aynu ka weyneyn doonaa markaynu weyneyno kadibna saasaynu u qalloocin doonaa button-iskaas aynu isticmaalay inaad fahanteen baan insha Allah ta'ala rajaynaya haddii aanad fahmin waxa muhiim inaad muuqaaladii hore soo daawato intaa kadibna buttonku markuu halkaas inoo yaalo kadibna halkaas calaamada centerkeenu ku dhufan doonaa oo ah meesha shapeska laga maamulo waa in shape-kan inoo select garaysiya shape-kan haddaan inoo select garaysnayn waxyaabahani halkan inoogama soo bixi doonaan halkan waxyaabaha yaalo oo dhan sida awgeed waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay copy halkay ku qoran tahay markaynu ku dhufano halkaas laba shape ba hadda inoo yaala kadibna dhankan inuu socon doonaa xagga hoosta kadibna halka color ay ku qoran tahay inuu taaban doonaa kadibna color-kaas aan soo furi doonaa oo fiirso color-ka markaynu soo furno kadibna waxaan dooran doonaa color-ka akhtarka ayaan dooranayaa kadibna calaamada check mark-ga soo hari doonaa marka labadan shape color-kooda kala duwan kadibna qaabkaas aan isku soo duldhigi doonaa aniga waxoogaa yara kala hoosaysiinaya kadibna marka halkan inuu ku noqon doonaa kadibna shape-kiinu marka la koobiyin doonaa copy baynu ku dhufanay kadibna haddana waxaan ku noqon doonaa halkii color-ka misna color-kaynu marka le bedeli doonaa color-ka markaynu bedelno kadibna calaamada check mark-ga ku dhufan doonaa labadii shape qaabkaas isku dul yaalaan saddexdii shape aan ilaahdo kadibna marka laynu koobiyin doonaa halkan copy-daynu ku dhufan doonaa kadibna saasaan u qalloocinayaa u fiirso kor ayaan soo yara taagayaa saas oo kale kadibna mar kale ayaynu halkan ku noqon doonaa kadibna midabkeeda waxaan ka dhigi doonaa green-ki ama akhtarkii baynu ku celin doonaa haddana mar kale aynu koobiyin doonaa u fiirso markaynu koobiyino haddana midabkaynu ku noqon doonaa waxaanu ka dhigi doonaa midabkii kale okay marba midab baynu ka dhigaynaa sida kuu muuqata marka xoogaa baan hadda yaraynayaa sidii hore ma aha hadda aad baan u yarayn doonaa aad markaynu u yarayno kadibna saas baynu u jeedin doonaa kor eriyadaasaan dhigi doonaa intaa kadib haddana mar kale aynu taaban doonaa haddana copy baynu ku dhufan doonaa markaynu koobiyino shape-kani waxoogaaba aad u yara dhuuban yahay kadibna waxoogaa waxaan ka dhigi doonaa mid intaa waxoogaa ka yar ballaaran laakiin shape-kii ukunta haynoo ahaado kadibna saasaan u qaloocinaya u fiirso dhankaasaan u jeedinaya kadibna waan weyneynaya u fiirso saasoo kalena u weyneynaya okay intaa kadib mar kale aynu shape-ka koobiyin doonaa halkan copy ay ka qorantay ku dhufan doonaa sidoo kale dabadeetana halkaas inoo yaalaa deetana midabka waxaan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala caddaan baynu haddan dooranaynaa kadibna calaamada check mark-ga saaraya deetana shape-kii hore halkii uu yaalay ayaan in yar u jeedsiinaya halkaasaan dul dhigayaa kadibna haddana mar kale ayaynu koobiyin doonaa markaynu koobiyino waxaan insha Allah ta'ala ku celin doonaa midabkii hore akhtarka baynu ku celin doonaa kadibna halkaasaan soo dhigi doonaa u fiirso qaabkaas oo kale aan isku soo dul dhigi doonaa saddexda shape sidaas waxoogaa haw yar kala sarsareeyaan intaas kadib markaynu shapeska qaabkaas oo kale u habaysano kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa kadibna dhammaan shape-ka aynu isticmaalay quful baynu ku xidhan doonaa mid walba qufulkaas aynu taaban doonaa sida kuu muuqata haddii aad waxyaabahan qufulkan iyo waxyaabahan haddii aanad fahansanayn waxa muhiim inaad muuqaalada hore soo daawato intaa kadib waxaan ku dhufan
doonaa halkaas kadib insha Allah taala waxaan bilaabi doonaa area-daas ayaa runaantii ama background-kaas ayaa inaga ah midab akhtar u yara dhow kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa kadibna halkaas aynu ku sii dhufan doonaa kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa color ay ku qoran tahay kadibna midabka cadaanka ah aynu ka dhigi doonaa okay inta kadib waxay noo xaray inaynu soo gelino sawiradii iyo waxyaabihii muhiimka ah sida awgeed si aan sawir ugu soo daro halkaas calaamada wadarta aynu ku dhufan doonaa kadibna waxaan ku sii dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay from gallery kadibna sawirkan aynu gallery-ga kaga soo darnay marka sawirkan sidoo dhameystiran qaadan mayno intaas yar baynu ka goosanaynaa intaas yar ee birta ayaynu goosanaynaa si aynu u goosano halka calaamada circle-ka ayaynu insha Allah taala ku dhufan doonaa circle-ka markaynu ku dhufano koornahaas aynu qabanaynaa saas aynu yareynaa circle-ka yar ee noo soo baxay dabadeetana halka birta aynu ku qabanaynaa si fiican baynu u soo leegaysiinaa inta birta kadibna halka calaamada check mark-ga aynu ku dhufan doonaa kadibna waan yareynaynaa markaynu yareyno waxaan dhigaynaa runaantii halkaas baan dhigi doonaa bartaas ayaynu runaantii dhigi doonaa bartaas buu ku qurux badan yahay marka materialkan iyo waxyaabahan isticmaalayo commentiga ugu horeeyaan soo dhigi doonaa barta YouTube iyo barta Facebook commentigaas markaad raacdaan wuxuu idin geyn doonaa barteena Telegram-ka halkaas insha Allah taala kala soo dhigi doontaa dhammaan materialka loo baahan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala si fiican u fahantay inta kadib waxaan ku soo dari doonaa gaariga ayaynu ku soo dari doonaa kadibna halka calaamada wadarta ayaynu markale ku dhufan doonaa hadana gallery-gan kaga soo dari doonaa kadibna gaarigan ayaynu ku soo darnay sida ku muuqata kadibna halka calaamada check mark-ga ayaynu ku dhufan doonaa kadibna gaariga yar xogaa baynu yareyn doonaa markaynu yareyno meesh si fiican u leegaysiino halkaas baynu ku deyn doonaa insha Allah taala kadibna waxaan sameyn doonaa markaynu gallery-ga tagi doonaa waxaan ku soo dari doonaa gaarigu markuu taagan yahay xogaa had ama shadow ayuu leeyahay marka hadkii baynu ku soo dari doonaa kadibna calaamada wadarteen markale ku noqon doonaa hadana gallery-gan kaga soo dari doonaa hadka kadibna hadkii ama shadowgii baynu soo qaadanay kadibna saan ugu soo darno halka calaamada waan ku dhufan doonaa check mark-ga kadibna xogaa baynu saa u yareyn doonaa xogaa baynu saa u yar qaloocinayna si gaariga qumaati oo kale ugu beegan saas aynu ku deyn doonaa saas hoostiisa tusaale halka taayirada aynu ku beegnay kadibna halkaas aynu ku dhufan doonaa kadibna gaarigeenu hadka hoosta ka marnay way gaariga hadka wada waa ka sareeya hoostaynu ka marin doonaa deetana laba quful baynu ku xidhanay bartaas haynoo yaalo gaariga iyo hadkiisii oo diyaarsan oo aad iyo aad u qurux badan inta kadib wali hadda wax kale aynu gallery-ga kaga soo dari doonaa halka calaamada wadarteenu ku dhufan deetana gallery-geenu kaga soo dari hadana gallery-ga waxaan kaga soo darnay gaarigaas marka gaariga uma baahnin inta taayirka aynu goosan doonaa laakiin intaynaan taayirka goosan waxaan rabaa in gaariga dhanka kale u jeedino sida awgeed halkaas aynu ku dhufan doonaa Philip kadibna halkan waxaan ku dhufan doonaa circle-ka dabadeetana saas aan u yareyn doonaa inta gaariga taayirkiisa aynu soo goosan doonaa u fiirso gaariga taayirkiisa ayuu ban leegaysiin doonaa circle-kaas kadibna markaynu si fiican u leegaysiino waxaan sameyn doonaa halka calaamada check mark-ga ku dhufan doonaa kadibna waa kan halkan inoo yimid waynu yareyn doonaa ka saas markaynu u yareyno kadibna bartaasaan dhigi doonaa laakiin de uu ka yar yahay meesha isku shape-na maaha marka shape-ka circle-ka kale inuu ka dhigi doonaa halkaas aynu qaban doonaa saas aynu ka dhigi doonaa sidii ukunta dhankaasna waxoogaa baynu qaloocin doonaa dabadeetana meeshaan si fiican u leegaysiin doonaa u fiirso meesha markaan si fiican aynu u leegaysiino kadibna halkaas calaamada centerka aynu ku dhufan doonaa kadibna dhankan aynu u socon doonaa u fiirso kadibna opacity-ga aynu ka dhigi doonaa maxay 10% baynu ka dhigi doonaa insha Allah taala saas aynu ku deyn doonaa marka waxa weyn taayirkeena saas ayuu runaantii ku noqday mid khafiif ah oo waxa la moodaa isagu inuu background-ka ka sii xiga ayaa hadda la moodaaba sida awgeed marka waxaan ku xidhan doonaa qufulka dhamaan waxyaabahaas waxa muhiim ah inaad qufulka ku xidhato sida awgeed halkaas aynu markale ku noqon doonaa waxa noo haray hadda waxa weeyaan tagaskii qoraal kaliya baa noo haray sida awgeed halka calaamada wadarteena ku dhufan doonaa kadibna halkan tagaskaynu ku dhufan doonaa dabeetana tagaskii qoraalka waa halka yaala waynu soo qaadi doonaa halkaas aynu dhigi doonaa si fiican kuleyto uma muuqdo si uu u muuqdo halkaas aynu ku dhufan doonaa eeda kadibna halkan aynu socon doonaa kadibna halka color ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa dabeetana colorka waxaan ka dhigi doonaa cadaan bartaas imka tagaskii ayuu qoraalkii noo yaala sida awgeed laba mar baynu qoraalka taaban doonaa dabadeetana waxaan ku qori doonaa flow as aynu ku qori doonaa kadibna okay baynu siin doonaa waynu yareereyn doonaa dabadeetana halkaas aynu dhigi doonaa u fiirso kadibna hal mar baynu taaban doonaa mar kale dabeetana copy baynu ku dhufan doonaa markaynu koobiyeyno tagasku cadaan buu ahaa background-ka cadaanka ayuu ku dhici doonaa bartaasu inta badan tagaa dabeetana hal mar baad gacanta kusoo qaadi doontaa tagaska halkaas haynoo yaalo laba mar baynu haddana mar kale taaban doonaa dabeetana waxaan ku qori doonaa far loo yaqaano Tabicon marka waad fahmi doontaa marka waxaan qori doonaa YouTube Facebook Instagram Twitter mid walba xarafka ugu horeeya insha Allah taala ka soo qaadan doonaa marka YouTube-ka waa idin ka soo qaadanay Facebook-ga F-taynu ka soo qaadanay Instagram-ka I baynu ka soo qaadanay Twitter-kana waxaanu ka soo qaadanay T inkastoo imika X loo bixiyay laakiin la imika waxba lagama bedelin Tabicon baa fartan la yiraahdaa asxaabta nagu xidhay way fahmi doontaa laakiin asxaabta aan nagu xidhnayna ma fahmi doonto waxa muhiim ah in muuqaaladii hore soo daawato muuqaaladii horena waan ku tilmaamay meesha insha Allah taala ka heli doonto sida awgeed halka okay-dan ku dhufan doonaa laakiin intaynaan okay-da ku dhufan xarfahan meesha kugu qorqorani waa xarfo yar yar oo small letter ah sida awgeed capital letter aynu uga dhigno halka TT-da ayaynu hal mar taaban doonaa markaynu hal mar taabano wada capital letter bay noqon doontaa kadibna halka okay-dan ku dhufan doonaa u fiirso dabeetana halkaas yeelaan xarfihii sida awgeed halkan inuu socon doonaa hoosta dabeetana waxaanu dooran doonaa fartii Tabicon-ka sida awgeed halka ay ku qoran tahay AB ama font aynu ku dhufan doonaa kadibna halka ay ku qoran tahay my font baynu ku dhufan doonaa marka fartu waa tan waa far kasta baynu
kusoo darsanay marka sida far loogu soo darsado muuqaaladii hore inuu kaga soo hadalnay fartana linkiga commentiga ugu hore insha Allah taala soo dhigi doona Taybiconka sida ogeed hal mar baan taaban doonaa kadibna halka okayda ku dhufan doonaa u fiirso halkaas markii ku dhufano dabadeetana sida kuwa muuqata waxa weeyaan halkan waxa yaala xarfihi ama logooyinkii Instagramka Facebooka YouTube waxaas yaala Taybicon baa loo yaqaan farta insha Allah taala hore inuu soo hadalnay sida ogeed halkan inuu socon doonaa fartani wuxuu isku dhowdahay logooyinku dhinaca isku wada hayaan marka spacing baynu sameyn doonaa spacing sida loogu sameeyo waxay tahay halka space ay ku qorantahay inuu ku dhufan doonaa deetana dhankaas inuu riixi doonaa kadibna halkan calaamada check markiga inuu ku dhufan doonaa inta kadib waxaan rabnaa in tagaska ama qoraalka aynu sameeyno background yar oo akhtar ah aynu sameeyno sida awgeed backgroundka khaaska ah sidoo ugu sameyn karnaa inaan halkan u socono weeyaan kadibna aynu doorano halkan ay ku qorantahay background marka hadayna fartani ku select gareysnano dooran ama ana taaban waxyaabahan ku soo bixi maayaan sida awgeed halka background ay ku qorantahay inuu taaban doonaa kadibna halkan inuu soo furi doonaa bartaas marka soo furno deetana akhtar baynu dooran doonaa midabka sida ku muuqata backgroundkeedu wuxuu noqday akhtar sida awgeed waxaan sameyn doonaa koornayaasha ayaa runtii backgroundka loo riixi karaa sida ku muuqata kadibna xagga leftiga inuu xogaa u riixi doonaa kadibna xagga kale runtii waxa dhankan inuu riixi doonaa iyadna right-ka ama dhanka midig baynu riixi doonaa sida ku muuqata okay inta kadibna waxaan sameyn doonaa dhanka top-ka ayaan xogaa ka soo yareyn doonaa xogaa baan saasoo kale uga soo yareyn doonaa minus baan gelin doonaa saasan ku deyn doonaa deetana dhanka button-ka ayaan sidoo kale isagana saa u soo riixi doonaa isagana insha Allah taala kadib waxaan koobiyeysan doonaa fartan ay ku qoran tahay follow us halkan koobi ay ku qoran tahay taaban doonaa sidoo kale halkaas cadaanka abay tagtay sidoo kale waynu soo qaadi doonaa iyadana halkan inuu keedi doonaa halkaas markaan keeno deetana laba mar ayaan taaban doonaa farta laba mar baan gacanta macnaha si xigtaan hal mar klik bala siinaya farta laba mar ku dhufan doontaa okay inta kadibna waad masixi doontaa deetana waxa oran doontaa call us naga soo wac kadibna okay baan siin doonaa okay markaan siino kadibna halkan inuu socon doonaa sidoo kale farta waxaan u sameyn doonaa background baynu u sameyn doonaa backgroundkii waxaan ka dhigi doonaa akhtar kadibna dhankan u socon doonaa right aynu runtiisa u riixi doonaa xogaa aynu yara dheeraysiinayna kadibna saasaan ku deyn doonaa haddana mar kale aynu koobiyeysan doonaa fartan ay ku qoran tahay follow us markaynu koobiyeysano halkaas baan dhigi doonaa dabeetana laba mar baynu taaban doonaa iyadana waxaan ku qori doonaa tusaale ahaan taleefankaaga aad ku qori doontaa taleefanka marka ganacsiga aad ugu tala gashay deetana nambarkii aad ku xigsiin doontaa adu wax bala saasoo kale ay runtii u qori doonaa kadibna okay baan siin doonaa bartaas ay noo taalo saas baa runtii la iskugu beegayaa afartaba si ay u qurux badnaato okay inta kadib waxay noo haray halkan qoraalada aynu ku qorinay iyo service-ka aynu bixinay waxyaabihi oo dhan sida uga tala haddana hal mar baynu koobiyeysan doonaa fartaas markaynu koobinayno kadibna halkaas aynu soo dhigi doonaa kadibna laba mar baynu taaban doonaa dabeetana waxaanu ku qori doonaa service we provide aynu ku qornay kadibna waxaanu ka dhigi doonaa capital letter sida uga tt-dina hal mar taaban doonaa tt-da markaynu hal mar taabano kadibna line-kan aynu breaking ku sameyn doonaa waynu kala jebin doonaa laba line baynu ka kala dhigi doonaa si aan uga dhigno halka weed ay ku qoran tahay baynu ka break karayn doonaa kadibna halkaas aynu hal mar taaban doonaa u dhaxaysa space-kaas kadibna arrowga hoosteena ku dhufan doonaa sida marka line cusub loo bilaabana qof kasta waxa qoraa uu fahansan yahay insha Allah taala sida awgeed halka okay-dana ku dhufan doonaa okay markaynu ku dhufano haddana halkan inuu socon doonaa hoosta inta kadib waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay align kadibna ta centerka aynu dooran doonaa ta centerka markaynu doorano haddana halkan inuu soo socon doonaa kadibna halkan bid aynu hal mar taaban doonaa kadibna halkan calaamada check markiga ku dhufan doonaa haddana wali hadda waxay noo haray in farta midabkeeda aynu qayb wax ka bedelno tusaale ahaan qaybna waxaan ku deyn doonaa cadaanka qaybna waxaan ka dhigi doonaa midabkan oo kale si aynu uga dhigno halkan inuu socon doonaa deetana waxaan tagi doonaa meesha ay ku qoran tahay color aynu raadin doonaa watan dabadeetana waxa weeyaan hoosta inuu soo socon doonaa dabadeetana halkan koornayaasha halkan hoosta ee colorka tagaska select gareysan sida ku muuqata koornayaasha waxa kaga jira runtii laba shay oo blue ah kadibna hadda saa u riixdo farta qayb kamid ah select gareyn karta ama dooran karta sida awgeed qaybta profile ay ku qoran tahay kaliya ayaa hadda inoo highlight gareysan qaybtaas aad ku beegi doontaa adigoo isticmaalaya koornayaasha blue-ga ah okay sida awgeed qaybta profile ba hadda inoo select gareysan colorka waxaan ka dhigi doonaa dabcan madow weyn ka dhigi doonaa kadibna halka calaamada check markiga ku dhufan doonaa haddana mar kale insha Allah taala waxaan sameyn doonaa halkan waxaan ku qori doonaa service-ka aynu runtii bixinay sida awgeed hal mar baynu runtii tagaska aynu soo qaadan doonaa ama mar kale aynu soo koobiyeysan doonaa tagaskiyo kale dabeetana halkaas baynu soo dhigi doonaa dabeetana laba mar baynu taaban doonaa dabeetana qoraalkaas aynu ku qornay qoraalka waxaan ugu tala galnay service-ka aad bixinayso 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 ba aad ku qori kartaa sida awgeed aanu intaas oo kaliya runtii ku qoray waxa muhiim ah runtii inaad qoraalo badan oo runtii ku anfacaya ama dhowr qoraal oo ku anfacaya oo service-ka iyo adeegyada aad bixiso ah inaad ku nashqadayso sida awgeed halka okay-da aynu ku dhufan doonaa okay markaynu ku dhufano qoraalkii waa kan saas aynu runtii u yar kala jiideynaa bartaas aynu soo dhigaynaa xogaa baynu yareyn doonaa kadibna fartaynu bedeli doonaa farta si aan u bedelno halkan aan tagi doonaa ay ku qoran tahay AB kadibna fartan originalka ku jirtay loo yaqaan Braga Sans Ball ay ku qoran tahay hal mar taaban doonaa kadibna okay baynu siin doonaa inta kadib halka waxa soo dhigi doontaa loogadaada insha Allah taala sida awgeed hal qoraal ay insha Allah taala ku qori doonaa okay inta kadib anu qoraalka waxa ku qoray your logo halka waxa loogu talagalay in loogadaada
dhigto marka runaantii waxaanu sameynay oo nashqadaynay cover aad iyo aad u qurux badan waxaana loo isticmaali karaa poster ganacsiga lagu promote gareeyo sidaan hore soo sheegay waxaan rajaynayaa insha Allah taala dhammaantiin aad si fiican u fahanteen haddii aanad fahmin waxa muhiim ah inaad muuqaaladii hore soo daawato si degan u soo daawato muuqaaladii horena halka loogu hagaagayo waan sheegay dhammaan materialkan isticmaalayna meesha loogu hagaagayo ama aad ka heli karta insha Allah taala waan idin sheegay waxaan rajaynayaa insha Allah taala si fiican insha Allah taala isku fahanay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo haddii aad wuxuu naga faa'iideeyay inaad la wadaagto asxaabtaada tan inta ku kulmi doono muuqaal kale oo kala lamid ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.